kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale. toddobaadkan waxa aan waraysi ka qaadaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Dastuuriga ah Professor Aadan Xaaji Cali oo aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno kiyo shaqada ku jirana aanu ka duubnay arrimahan. in waxaaga gudoomiye waxaad nooga warantaa bal taariikhdaada oo kooban. markay taariikhda noqoto shaqadan cadaaladda iyo garsoorka waxaan kusoo dhex jiray muddo iminka dheer. markay ugu horreysay waxaan ahaa nin macallina oo jaamacadda Hargeysa qaybta sharciga ka tirsan muddo 10 sano ah. marka waxaan ahaa bare sharciga ah. waxaa kaloo tababari jirnay garsoorayaasha iyo xeeraalayaasha iyo qareenada iyo bahda kale la raacdan 7 sano tababar baan ku tababari jirnay. waxa kaloo aan mar director ka ahaa ama aan suduwaha ka ahaa qaybta legal aid-ka qaybka dadka lagu siiyo kaalmeynta sharci adeegga sharci oo kuliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa ka tirsan. markii dambena waxaan ka ahaa maxay ahaydeen dean qaybta post graduate-ka ama shahaadada heerka labaad oo dhan ee jaamacadda iyadoo hoos iman jirtay macad aan director ka ahaa loo jiray macadka barashada nabadda cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadka. waxa kaloo iyagana aan 5 sano lahaa la taliye waxaan kala talin jiray madaxweynaha xagga sharciga. muddo 4 sano ana waxaan chair u ahaa aan ka soo shaqeyn jiray ururada bulshada noocyadooda dhan madaladay lahaayeen ayaan gudoomiye ka ahaa. iyagana muddo dheer baan ururada bulshada iyo xuquuqul insaanka iyo dhulka ka shaqeyn jiray. laakiin markii dambe isku xidhkooda ugu weyn Sonsof la yiraahdo baan gudoomiye ka ahaa. marka la eego cilmi baare waan ahaa oo jaamacadda marka dhinaca laga eego. marka kama dambeystii waan halkan soo join gareeyay garsoorka. anuu markii hore baan ka badnayno dhinacyo badan haday tahay tababarka haday tahay dhinaca la talinta consultancy-ga waan markii dambe halkan garsoorka iyo muhiimka imika halkan baan joogaa. taasi marka waa dhinaca mihnada iyo wixii aan maraaxilkan soo marnay. gudoomiye waxa tahay gudoomiyihii ugu yaraayay muddo 24 sanadooda taqriiban yimi. marka expectationka markii lagu soo qoray imika iyo markaad hawsha dhex gashay bal hadda dareenkaaga nooga waran. wallahi markii aan meesha laysoo madaxweynuhu magacaabay baarlamaankuna uu ansixiyay labadiisa gole labadiisa aqal ee chamber labada chamber. shaqadan horta shaqo sahlan maaha. expectationkii aan filayay reform weyn baanu samaynay imika. marka maalintaan imi anuu expectationkaan qabay iyo maanta aad bay u kala duwan yihiin. horta caqabado badan oo filayay way iga hor yimaadeen oo shaqadan waa shaqo baaxad leh waa shaqo weyn laakiin waanu ka soo dabaalanay. waxaanu samaynay dib u habeyn aad u ballaaran oo dhinac walba leh. marka expectationkaygaas markaa hore waxaan ahaa nin u diyaara inaan shaqo qabto oo shaqadaana isbeddel keeno. quality-ga ama tayada ay leedahay adeega uu garsoorku bixiyana saru dalaca. hay-adaha kale ee ku hoos jira ee wada shaqeyn fiican la yeesha. marka expectationkaygu waxay ahayd expectation ah inaanay shaqadu sahlanayn. waanu waajahnay imikana alxamdulillah wax badan baa noo hirgalay. waxyaalihii aan filayay badankooduna way naga hor yimaadeen caqabad hadday tahay. guulo badan oonu filaynay inaynu gaadhnana waanu ku guuleysanay. marka alxamdulillah maantana meel fiican baan marayna wadiga arkayay maanta wadikaaba in badan nagala qayb qaatay. mashaakilku inta badan waxay u badnaayeen garsoorayaasha laga caban jiray iyo dacwooyinka oo dib u dhaco isfuula maxkamadaha. arrimaha maxaa ka qabateen? wax badan baanu ka qabanno. waxaa jira guddiga cadaaladda guddiga cadaaladda oo 10 qof ka kooban oo aanu gudoomiye wahay. marka guddigaasaa leh magacaabidda anshax marinta iyo xilka qaadista garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeeraalayaasha. beri dhaweydna waad la socotaayo waxaana lagu soo wareejiyey wasaaradda cadaaladdu maamul jirtay maxkamadaha hoose maamulkii maaliyadda iyo gaadhsiiyayaasha iyo kaaliyayaasha oo qayb naga maqnaaya. intaasiba imika anagayna hoos yimaadaan. marka cabashadooda waxaa jira guddiyo hoos yimaada qaarkood guddiga cadaaladda hoos yimaadaan. waxaa jira guddi la yidhaha guddiga kormeerka dabagalka baadhida iyo cabashada. guddigaasaa loo gudbiyaa guddigaasaa baadha guddiga cadaaladda u soo gudbiyaan. marka hadday cabasha jirto saasaan ku qaabilaa. hadday cabashadu aanay la xidhiidhin garsoore ama xeeraaliyana maxkamadda saraa ku leh oo awood u leh
maxkamadda sare ayaa awood u leh, iyadaa ku shaqo leh, iyadaana baadha. Markaa cabashooyinka si daily wax uga qabanaa. Iminka tusaalahaan oo kale maanta waad iga arkayay maalintii dadweynehay ahayd, waxaa ii soo galay intaasoo dada. Markaa dadkaasoo kale cabashadoodii waanu receive garaynay, markiiba on spot waanu xalinay. kuwa kale ee aan markaa aanan xalina markiiba cid ku shaqala baanu diraa ama baadha ama daba gasho ama jawaab ka soo bixiso guddiyo hawleedii aan maamul ku daadijinay baanu bixinay. Marka cabashadoodii baa la helaa, waxbaa laga qabtaa, waa lala xisaabtamaa, waanu eegnaa. Dadweynaha laftigooda way ogaadeen arrinka, iyagu hadday dhib ku leeyihiin oo baray ka yihiin problemka dadweynaha laftigooda tallaabo laga qaadaa, waayo mararka qaarkood dadweynihii baa dhinac ka ah oo isagiibaa mushkiladii baraf ka ah. Marka tallaabaanu ka qaadaa iyaga laftigooda. waxaa haddii aynu eegno waxaa kugu badnaa maanta markaynu joognay dacwadaha dib u eegista, marka dacwadahaasi sidee u xalisaan? dib u eegistu inta badan dib u eegistu dad badan si aynu u fahno, dib u eegistu waxa weeyaan dacwaddu markay maxkamadda sare ka dhammaato ee ay rafcaan ay ku timi maxkamadda sare, waxaa jira marxalado uu mararka qaar sharcigu u ogolaanayo inuu dhinacii laga xukumay uu yidhaahdo weli xukunkii maxkamadda sare kumaan qancine fursad halay siiyo. marka weliba waxa weeye ka cabanayo qodob sharci oo uu leeyahay si fiican looma dabaqin, xaqaa'iqii yaalay laguma dabaqin, ee aanu muranku ka taagnayn, ma garanaysaa dhacdooyinkii iyo xaqaa'iqii iyo cadaymihii iyo wixii lasoo bandhigay markaanu ka taagay, lakin qodob sharci uu ka hadlaayo weeyaan. markaa dib u eegistu qof walba lama siiyo, cid walba lama siiyo, oo marxalad gaara oo ciddii cabasho haysa ee weliba cabashadeedaa si fiican u naarow garaysa, ee qodobkii sharci oo si fiican aan loo dabaqin ama sidii ahayd in loo dabaqo aan loo dabaqin ka cabanaysa weeyaan. marka waa la siiyaa fursadda ugu dambeysay eegaan, way ku quus qaataan. hadday arkaan in dee cadaaladdu la jirtana waa lagu saxaa, haddii kalena waxa laga yaabaa habkii hore rafcaankii iyo maxkamadda sare ay soo xukuntay in la raaco. cabashooyinka dadweynaha waxaa jirta matalan gobolada dad badan oo idinka yimi ayaan arkayay dadkaasi inta badan duruufo ayaa jira oo matalan magaaladii ma joogi karaan, hodheelay ku jiraan, sidee qudhooda ugu tixgelisaan? horta cabashadan dadweynaha la qaabilayo waanu daadejinay. gobol walba waxaa ka jira 3 maxkamadood: maxkamadda degmada, maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaanka. marka wixii gobolkaa ku saabsan maxkamadahaasaa qaabila, oo sidan iminka aanun maanta u qaabilayay ayaa dhammaan waddanka Soomaaliya dhan lagu qaabila. marka ciddii markaa ka cabanaysa maxkamadaha heer rafcaan ee gobolada iyuunbaa halkan timaada, iyagana marka waanu soo dhaweynaa, waanu u dadejinaa. markiiba wixii wax lagala qaban karo waa lagala qabtaa, hadday tahay gobolkii oo lala xidhiidho, hadday tahay qoraallo halkan kaga xidhan, hadday tahay dacwadahoodiyo inay socdaan ay tahay markiiba. laakiin waxaan kuu sheegayaa cabashada waa la daadajiyo, maxkamad wal oo Somaliland sidaa aan anigu dadweynaha u qaabilay bay u qaabilaan. waxay leeyihin maalmo go-an, waayo berigii hore waxaa jiri jiray guddoomiyaha maxkamadda ama maxkamadda degmada ha noqoto ama ta gobol ha noqoto ee gobolada Somaliland oo dhan, ama maxkamadaha rafcaanada ha noqdaan, guddoomiyahaasi dacwado badan buu ka garnaqi jiray, dabeedna wakti badan buu mashquuli jiray, dabadeedna dadku way waayi jireen meel ay u cawdaan. arrintaa waa la joojiyey. 65% maxkamad kasta cidda guddoomiye ka ahi waa inay fadhiisato maamul ka shaqayso, hadday cabasho tahay, hadday garsoorayaasha ay la xisaabtamaan tahay, hadday dacwaduhu maxay isbiirkooda iyo degdegi waayaan hadday tahay, hadday tahay dadka ka baxsan maxkamadda, hay-adaha kale maxkamadda ka baxsan ee dawliga ah ee la shaqeeya inay la shaqeeyaan, hadday tahay ururada kale caalamiga ah inay maamul u banbaxaan, oo aanu guddoomiyihii maxkamadda ee gobolka tusaalaha Hargeysa ama gobolka Burco ama gobolka Awdal ama gobolka Sanaag ama gobolka Sool inaanu noqonin garsoore la waayo, ee inuu dacwadihii dastuuriga ah ee sharcigu ku waajibinayana qaado iyo dacwadaha xasaasiga looga maarmi waayo, maamulna uu bato iyo hogaamin. taasaa markaa waxay yaraysay cabashadii, waayo dadku waxay heleen meelay u iirtaan, meelay qoraal u codaan. markaa cabashooyinka goboladu markay waxba ka qaban waayaan ayay maxkamadda sare soo gaadhaan. waxaa jiray waxyaabo matalan dabeecadaha hadhaadiyahoo muddo badan soo jiro dadweynaheenna aada muddo dacwadda inay matalan 20kii sannadood matalan dowladihii hore xukumayeen, oo qofka marka saman loo keeno uu dacwaddii sas ka qabo oo isagoo aanu ogsoonayn in cadaaladaasi ilaa uu laaluush bixiyo uu xaakanka siiyo. marka arrimaha maxaa ka qabateen? arrimaha wax weyn baanu ka qabanno. eeg 2 arrimood baa jiray. waa saad sheegto horta dadkeenu foobiyay ka qabeen, guud ahaanna maaha garsoorka. waxay aaminsan yihiin
haddii aanay wax bixin inaan adeega guud wax loo yaqaano public service inaan adeega guud ee dowladnimada ah inaan loo qabanaynin markaa taasi waxa weeye waa cuqdad runtii meesha taalla waana in lala dagaalamo markaa garsoorka waxaanu samaynay iyaga laftigooda baanu la dagaalanay qofka wax bixiya ee lagu ogaado inuu wax bixinayo waa la xidha dad la xidhay baana jira oo arrintaa maxkamadaha ku galay waxa kale oo aanu tallaabo ka qaadnay cid kastoo arrintaa dhiiri gelinaysa ama cid dhexa ha noqoto ama cid daraf dacwadeed ha noqoto waa la xidhay iyagana dadweynahana waxaanu ku dhiiri gelinay inay u yimaado imanka maanta waad arkaysay intaasoo boqol qof baa yimi wasta soomay kaxaysan cid lamay wadanin ballan may lahayn waa maalmihii dadweynaha toos bay igu soo galeen waxaanu ku dhiiri gelina markaa inay toos u yimaadaan inaanu iyaga xafiiska u fadhino inaanu iyaga u shaqaynayno inay xafiisyadani kuwoodi yihiin hadday iyagu markaa leexdaan oo isagu leexdo oo isagu doonayo inuu xaqiisii laaluush ku helo tallaaba laga qaadaya oo reer waananu xidhnay waddanka oo dhan waayo xaqiisii wuu helaya xaqiisii wuu helaya marka xaqaagii inaad ku hesho dulmi maaha maanta albaabadaa kuu furan iyaga laftigoodan waxaan kuu sheegaya faysalow way ogaadeen way ku faraxsan yihiin way noo yimaadaan way la qabsadeen mental attitude maskaxoodu wayse sii bedelaysaa ugu daray gudoomiye si aynu matalan looga saaro wax dabeecadaha halaadiga ah si figis bay u baahan yihiin amba in education qofkii marka dacwadii loo keeno inaanu qofku gariirin bal education sidee ugu samayn kartaa taasi eeg waa laba dhinaco mid dhinac wax weeyaan horta mid waxa weeyaan waa mid annaga naga baxsan oo dee hay-adaha kale ee dastuuriga ah ee tacliintii iyo tacliintii civic education inay ku jirto in maxay haydeyn bulshadii barnaamijyadan wacyigelinta ee ay warfaafintu wado taasi waa mid guud oo ka baxsan annaga laftigeegu mar walba feedback baanu ku celinaa bulshada waa nagan la hadlaya waa nagan sheegayna waa nagan la dagaalamayna way ogyihiin in la xirxiday kii nabiga sal alla alay slam muxuu yihi waa la nacdale lucina raashi war murtashi war raish ka laaluushka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo ka u kala qaadaya raish saddex nooc weeyaan ee dilaalka u kala qaadaya waa la qabqabanaya marka haddii lala dagaalamayo systemka dhexdiisa inuu corruption dhaco dibadiisa qof ka yimaadana laga ogolaan maayo cid dhexoo u kala qaadana la ogolaan maayo wacyigelinna waanu ku wadnaa way arkeen practically inay xaqoodii helayaan inay xafiisyadii iyaga u furan yihiin laakiin guud ahaan annaguna waan wadaynaa waxaa loo baahanya hay-adaha kale dastuuriga ah hay-adaha kale dastuuriga ah inay iyaguna wadaan hay-adaha kale dastuurigana inay iyaguna wadaan oo ay arrintaa ay maxay haydeyn ay dee dhinacooda ka qabtaan oo tacliintii ka mid tahay warfaafintii ka mid tahay masaajidadii iyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ka mid tahay culimadii ka mid yihiin waalidkii iyo bulshadu halkay ka imanaysay ka mid tahay ururada bulshada iyaguna ay ka mid tahay si aynu ula dagaalano rayigan ah qofku ilaa adeegiisi guud dhinaca kalena hay-ad wal oo dawlihii inay iyaduna gudaheeda la dagaalanto in dadka si fiican loogu shaqeeyo in adeeg fiican la siiyo inaan waxba lagu xidhan inaan wax laga qaadanin qorshaha dib u habeynta cadaaladda iyo madax banaanida garsoorka maxaad bal ka waran arrimaha waanigii halka hore ka taabtay waxaa jira beri dhaweyd muddo dheer waxyaalaha loo ololeyn jiro waxaa ka mid ah aniga laftigaygu intii aan joogay halganka dheer aan ka galay in garsoorkoo kala qaarnaa la isku soo wareejiyo marka waxaa ka mid tusaale ahaan wasaaradda cadaaladdu waxay maamuli jirtay maamulka maaliyadda ee maxkamadaha hoose oo dhan maxkamadda rafcaanada ilaa wixii ka hooseeya waxaa kale maamuli jireen shaqaale hoosaadka kaaliyayaasha gaarsiiyayaasha shaqaalaha kale shaqaale hoosaadka nadiifisooyinka iyo dadka kale cleanarska wixii ka mid ah wixii oo dhan garsoorkaa lagu soo wareejiyey ololo weyn baa laga galay waxaanu aad iyo aad uga mahadnaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo runtii go-aan geesinimo la qaaday arrintaasoo muddo dheer la daba socdayna soo wareejiyey wax badan baanay ka tartay madax banaanida iyo dhexdhexaadnimada iyo kalsoonida garsoorka waxagaaga aadan haddii aanu ballanqaadyadii aad samayseen matalan maxaa ka hirgalay ee la taaban karaa ballanqaadyadii aanu samaynay wax badan baa ka hirgalay iminka tusaale ahaan waxaa kamid ahaa kow dacwaduhu inaanay dadku isku dhiman inay degdegaan oo iminka waxa weeye haddaad adigu garnaq u timaado haddaad 20 sano jirto de kaba baktiday marka waxaa jira xikmad sharciga lagu barto la yidhaahdo delay of justice and denial haddii cadaaladdu dub dhacdo waa cadaaladii oo la waayey cadaalad dub dhacdo waa cadaaladii oo la waayey taa isbedel weyn baa ayaa ka dhacay dacwadihii ugu cuslaa waxay maxkamadda sare kusoo gaadhaan iyagoo rafcaana haddii loo baahdo muddo 6 bilood ka yar sanad wax ka yar 10 sano 15 sano 16 sano socon jiray muddo gaaban bay kusoo gaadhaan taa waanu ka qabanay cabashadii dadweynaha waanu ka qabanay
in dadweynaha cabashadooda la dhegeysto waxa kale aanu ka qabanay maxay hayday dacwadaha madani iyo ciqaab ay u qaybsamaan guud ahaan marka category loo sameynayo qaybo badan oo usii kala qaybsamaan way jiraan waxa la wixii madani ee raagay ama laga heshiin karo waxaanu arbitration baan soo saarnay dhexdhexaadin waa awood kaloo maxkamadu leedahay in dadka la dhexdhexaadiyo inay dadku compromise sameeyaan halkay iskaga baabi'i lahaayeen arrintaana wax badan baa ka hirgalo kaysas hore oo duugoobay iyo kuwa cusub oo lagu dhameeyey waxa kaloo ka hirgalay inaanu cabashooyinka ka dhageysano hay'adaha kale dowliga ururada xuquuqal insaanka hay'adaha kale dowladda kuwa caalamiga ah inayna soo gaari karaan inay access noo yeeshaan inay fududaato inaanu helno oo inoo yimaadaan dabeedna aanu cabashadoo dhegeysano aanu baadhno wax ka qabanno arrintaasina waxbaanu ka bedelay waxaanu wax ka bedelnay waddanka oo dhan in maamul iyo garsoorkii la kala saaro oo dadka hogaamintii maamulka ku jira ay dadku helaan cabashada dhegeystaan dacwadaha dabagalaan tuulo walba guddoomiyaha jooga waddanka oo dhan arrintaasuu wadaa waana arrin la daadajiyo wax laga qabtay guddiga cadaaladuna ay aada uga howl gashay waxaa kaloo iyadana ka mid a maxay hayday dacwado qariiba wax badan baanu kusoo darnay oo iminka tusaalean waxa weeyaan adiga arkayda si maxkamadii loo habeeyey dhismayaashii qalabkay ku shaqeynayeen technologygii combyuutaradii casrigii waxaanu maraynaa heer iminka aanu hirgelinay berigii hore kaaliyuu gacantunba wax ku qori jiray in la duubo oo record systemkii aanu tijaabino oo iminka maalin dhow baan launch garaynaynaa waxaa ka mid a dacwado berigii hore si loo la yeelo la garan waayey sida d n ed oo kale inaanu dirno oo scienckii iyo technologygii cilmigii adeegsano dhakhtarka weyne hargeysa dhakhtarada kale ay nala shaqeeyaan waxaa kaloo ka mid a in dubahabeyn lagu sameeyo qaabka iyo agabka iyo aaladda iyo resourceka dadka ka shaqeynaya meeshaba arrinta ugu muhiimsan ee kale aanu sameyno waxa wey isla xisaabtanka accountability-ga in waxa weeyaan la isla xisaabtamo oo hay-adba hay-adday ka sarreyso maxkamadba maxkamadda ay ka sarreyso ay la xisaabtanto looga cawdo tallaabo ay ka qaado la dabagalo la ogaado waxaa kaloo iyagana aan dubahabeyn badan ku sameynay in dadweynaha laftigooda aan la xisaabtano oo ka aanu aragno inuu qalloocan yahay laaluushka dhiiri gelinayo brobagandada dhiiri gelinayo qabyaalada dhiiri gelinayo dilaalnimada nebigu sheegay ee kan wax u kala qaadaya dhiiri gelinayo in tallaabo sharciya laga qaado tallaabaanu ka qaado waxyaalahaas oo dhamina way soo afjarmeen waana waxyaalo intooda badanba la taabtay la arkay bulshaduna ay dareentay hagaag guddida cadaaladda oo kale haddaynu eegno inta badan kiisaska waxay leeyihiin matalan dhinaca dowladda kasoo galoo kale waxa weeyaan intooda badan dee xagga ayay ka kooban yihiin matalan kan madaxweyneha soo doortay kan kale halkan u ka yimi marka sidee loo arkaa arrinta guddiga cadaaladdu eeg way horta dastuurkeena yeedhiyey dastuurkii somaliland baa sheegaya waana waxay ka kala yimaadeen 10 hay-adood aqlabiyadoodu waxay ka yimaadeen waxa weeyaan 3 gudoomiyaha maxkamadda sare 2 garsooro senior ah 4 qofna baarlamaanka soo doorta laba qof oo guurta iyo 2 qof oo wakiilada 4 qof iyo suge 3 qof oo garsoorka soo 7 ma aqlabiyadu waa inta horta aqlabiyadu waa ka aqlabiyad fulintu ay tahay maaha 3 qof ee ku jira xagga fulintaana waa 3 hay-adood oo mandate leh oo tusaale ahaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha hoose civil servant ku kasoo gala ila shaqaalaha hoose oo dhan waa civil servant wasaaradda cadaaladuna DG-geedu waa technical oo waa xudunta isku xidha hay-adda garsoorka iyo fulinta ila weyne hay-adaha dowliga isla shaqeeyaan wuu isku xidha marka mar walba halkaas uu ka soo galay ka saddexaadna waa xeeraaliya guud oo xeeraaliya guud waxa weeyaan xeeraaliya ku-xigeenadii xeeraaliyaasha de waxa magacaaba guddiga cadaaladda marka xeeraaliya guud waa inuu fadhiyo wadamada qaar waxaa jira xeeraaliyaashii ku-xigeenada xeer gudiyada cadaaladdu ma magacaabaan innaga laakiin dastuurkeena sheegaya isna halkaasuu ka soo galaa waana hay-ad la doonayo inay madax banaani ku shaqeyso soo maad fahmin mustaqbalka haddii dastuurka wax laga bedelayo waa arrin kale u taale laakiin iminka aqlabiyadu 4 baarlamaanka iyo 3 garsoorka iyo 3 executive-ka weyn oo 3 executive-kana xikmad bay ku yimaadeen oo mid walba hay-ad buu ka yimi oo hay-ad buu matalaya haddii mustaqbalka reform lagu sameynayna waxaana hogaamiyo jeer gareeya oo madax ka ah oo isugu yeedha oo eega oo dhinac walba ka eega waxa weeyaan waa gudoomiyaha maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga awood badan leh waxaad ka warantaa waxaa jirta matalan waa daajiseen maamulka ilaa iyo degmooyinka ayaa geyseen oo ay ka mid tahay matalan meelaha xaafadaha degmooyinkii marka maxkamadahaas qudhoodu muddooyinkan dambe bahadoonaga horreysay u shaqeeyaan horta iminka waxaa jira
decentralization ballaaran ayaanu wadnay intii dambe oo dhan oo ah eeg inaanay garsoorka iyo cadaaladdu aanay magaalooyinka waaweyn ku koobnaan Hargeysa, Burco, Boorame, Ceergaabo, Laascaanood, magaalooyinka saa u waaweyn waxaanu markaa sanadkii barkii u dambeysay imika furnay 14 degmo oo qaarkood degmooyin waaweyn yihiin ayaanu maxkamada ka furnay maxaa kamid ah oo xitaa iyo maaha maxkamado kaliya xeeraalin baa kamid ah inkastoona ka wada furmin oo booliisku matalaan waxa kamid ah tusaale ahaan Xaaj Saalax waxa kamid ah Dila waxa kamid ah Dhoqoshay waxa kamid ah Bulaxaar waxa kamid ah Taleex waxa kamid ah Baran waxa kamid ah Laaskeel oo Dacar Buruqa waxa kamid ah Mandheera waxa kamid ah maxay hayday Wajaale oo degmad weyn oo border ku taala waxa weeyaan waxa kamid ah magaalada Oog oo dadku magaalada aad u cosmopolitan oo laamidu marto Waridaad maxay hayday maxay hayday xeebta markaad raacdo Boon magaalada Boon maxkamadii gobolka Salal ee Saylac waanu xoojinay ilaa meel ay ku shaqeeyaan dhowr iyo 10 ka degmo sanadkii barkii u dambeeyaan furnay maxay ka mid tahay marka maamul daadujinta degmo wal oo wadanka waxaan doonay inuu garsoor ka shaqeeyo 5 sano soo socota si dadku ay cadaalad u helaan si ay u yaraato habkan formalka loo baahdo inkastoo inuu wadankeenu qani ku yahay oo waligiiba habkan sulaxa iyo formalka loo baahnaanayo soo fahmin waxya sanad iyo bar wax ka yar ayay waxa soo degmay ku furnay waanu daadajinay Hargeysa waaxyaheeda kuwa ugu waaweyn 2 degmo noo haray mooyeen inta kordhan degmo maxkamadu way ka shaqeeyaan marka waxa la doonayaa in dadka loo dhaweeyo cadaalad iyo garsoorka say dadku access ugu helaan say u yimaadaan say u raacaan waxa kale oo baal socda marka maxkamadii la furo dadka baahan iyo dadka waxba haysani waxa laga yaabaa inay ku adkaato inay maxay hayeen inay qareen qabsadaan iyagana waxa jiraan mashruuc la yiraahdo qareenka saboolka way ka haygo hor ka dhicin waxa jirta gudoomiye dacwadaha marka u qaadaysaan had iyo jeer 2 garabood kiisaska u badan matalan dhulalka oo kale waxa jira niman baayac mushtariye niman dawladda ka tirsan oo mansab leh marka ninkii miskiinka ah lawyer lama qabsan karo waana la riixayaa waana meelaha badan dulmigu ka soo baxo sidee arrimaha uga garnaqdaan arrimaha waxaan uga garnaqaan raacnaa horta wax weeyaan case miskiin ama qareenka saboolka wax la yiraahdo jira qofku hadduu qabsan karo waayo qareen baa loo qabtaa meeshan dadku waxay ku yimaadaan iyagoo in wadiga arkay maanta dadkii halkan xafiiskayga soo fadhiistay madax baa ku jiray tujaar baa ku jirtay dad caan oo la yaqaanaa ku jiray shuyuuq baa ku jiray kayuugaasay wada galeen cadaaladda horteeda waa loo sameeyay ee waqti dheer bay qaadanaysaa waynu wadaynaa halganka waynu socodsiinaynaa bulshadeena ka bara oo qofkii isagii baaba doonayna cadaaladda marka qaarkood wuxuu doonayaa inuu cadaalad raaco laakiin halkan equal justice for all baa la raacaya cadaaladdu inay dadka u siman yihiin haddaanad qareen haysanaad qof waxba haysanoo saboola tahayna legal aid-ka laga siiya oo hay-adahan legal aid-ka bixiyana waa nugu qornaa annaguna waa nugu qabanaa dacwadaha qaarna dastuurkaaba waajibinaya xeerarka procedureka ciqaabta waajibinaya in qofku markuu qabsan waayo ciqaabtu ay tahay in compulsory loo qabto marka arrimahaasi ma jiro qof la odhanayo waxba ma haysto ciduudoodii mayso kii waxaystay baa loo xukumay ma jirto taasi maalin walba way doodaan kacaanka mid aan ahayn mid waxaysta mid aan ahayn mid taajiriye mid aan ahayn sharcigana waa loo sii way imika waxa la arkay qof dacwadiisu 15 sanadood aad ka soo wareegay oo aad dib u celisay marka dacwadu ma la xalinaya waxay leeyihiin cimri dacwadu cimri bay leedahay waxa weey cimrigeedaasi hadduu dhaco daadaa dayacay imika haddaad wax igu lahayd xaq ii sheeganaysay oo 10 sano aad dacwoon weydii weligaaba lahaan ma jira waxa weeyaan cimri bay leedahay dacwadu marka hadday dacwadu furanto lama odhanayo dacwadii furantay xilligaa loogu soo gabagabeeyo way socon kartaa inta ay dhammaanayso laakiin dacwadu hadday 20 sano 10 sano 15 sano ka soo wareegto 10 sano wixii ka badan cimri bay leedahay way dhimanaysaa waayo wixii aad sheeganaysay maxaa 10 sano u sheegan weyd marka inaga inta badan ma dhacdo marbar baa waxa yimaada wixii xilliyadii la burburay dawladdii hore Soomaaliya iyo dacwado dadku xilliyadii nabadda laga heshiiyay marka kuwaana ma dhiirigelino ma furno waayo wax la dhameeyay in la soo foqo anagu ma doonayn وهاجاج نوتايد أو كلا مشاكل كذين كي ما دا المحدود شغلت بل الدوينه مركز نوتايد قرنيا هذه تيار وحنا كي هل كان لو قفا بروبلم كتير waxay inta badan eeg waxaanu arintaa ku xidhnay qofku inuu qareenkiisa la tashado
eeg haddaanad qareen lahayn ku gaadhgareeyo oo kula taliya waxba kuu socon maayaan marka arrintaasi had jeer nootooyinkaas waxay dhib ku hayaan dacwadaha dhulka oo area inaan ka hadala dhulka iyo mushkiladiisa iyo waxaan oo dhan waad fahanto maaha waana badnaa wadankana iyagaa u badan waayo had jeer waxa dhulkii waxa sababaya dhulkan hantidan qarankaa lahaa hantidii qaranku lahaabaa la boobay waxaad arkaysaa nin 200 oo kun oo hektar leh xaguu ka keenay yaa siiyey beer maaha wax ma beero ma nacaafsado ma raaco maxay ahaydeen investment muu gelin dhulka intaa la eg waxa way qaran hantidii qarankaa la boobay dadna markii la boobay baa la isku haystaa garnaqeedu markaa u adkaanaya marka anagu imika waxaanu 2 qorshaanu raacnay qorshaha in wixii hore raagay la dedejiyo sulxna lagu dayo si maxkamadaha looga saaro wixii dambana in la adkeeyo sharcigooda oo la dedejiyo cadaalad loo raaco aanay fadhiisan hore u dhaafaan maxkamadaha wixii raagay ee madaxa isu galay ee socon waayeyna waad la socotaa dacwado badan oo caan ah ayaanu ku soo afjarnay sulx oo aanu arbitrationkan ku sheegay dhexdhexaadinta ama mediationkaasi aanu raacnay dadku way ku kalsoonaadeen aad bay u yimaadaan kuwo kale aanu iminka maalin dhow iclaamin doonaayo caana oo aanu raacayna markaa waxa weeyaan nootayooyinkan waxay daraf ka yihiin dhibtaa guud ee sharcigan iyo dhulkan faraha ka baxay ee hantidii qarankii lahaa ee daciifay ee faraha ka baxay magaalo walbana buuqaasa ka taagan dhul baan ugu badan waayahay gabagabadii aadan waxaad tahay dee professor baa tahay maanta maxkamadda waad soo gashay inteelood ku dhex jirtay matalan waxaa jira waxyaabo badan oo sharcigeenii mustaqbalka in laga bedelo u baahan binal codkii iyo waxyaabo badan oo kale sideed u arkaysaa bal wallahi arrintaasi waxay ku xidhan tahay waayo annagu eeg haddaanu garsoorka nahay sharciga ay baarlamaanku baaskareey ama sharciga hore jirun baanu dabaqnaa waa shaqo u taalla hay-adda xeerdejinta waa shaqada baarlamaanka in shuruucda reform lagu sameeyo in wax laga bedelo hay-adaha ku shaqada lehna u gudbiya garsoorku shaqo kuma leh annagu sharciga ma qorno baarlamaanka uma gudbino sharciga soo baxay baarlamaanku baaskareeya ama sharciyadii hore jiray ayuunbaa maxkamadaha lagu dabaqaa marka arrintaasi waa arrin u taalla guddi baa jirta la yidhahdo guddiga dubeegta shuruucda waxaa kaloo jira guddi shuruucdu dhinacan madaxweynaha iyo fulintii ka tagtaa baarlamaanka laftiisu awood bay u leeyihin inay curiyaan in wixii duugoobay dubhabeyn lagu sameeyo in la eego waxyaalahaasoo dhan waa shaqo naga baxsan annagu xeerarka soo baxun baanu sharciga ku dabaqnaa oo ma dejino ma eegno ma reform garayno wixii waanu fasirnaa oo tafsiir waanu raacnaa waanu fasirnaa oo tafsiirka maxkamadda sare awoodda u leh laakiin dee in dubhabeyn lagu sameeyo in xeer duugoobay la bedelo in xeer dastuurka ka hormanaya la bedelo waxaasoo dhan waa hay-adda baarlamaanka u taalla igu hagaag xaaladda taagana doorashooyinka garsoorka qaybtiinu xaggee kaga aadantii eeg horta annagu maxkamad dastuuriga ahi dhinacyo badan bay kasoo gashaa berigii dhowdu adigu ogaa markay doorashooyinku dub dhaceen halkan baa la isla yimi maxkamaddaa margoysay xilliga doorashada haddana si waktigii dambe loogu habeeya abaaruhu markay dhaceen waanu furnay iminkana ishaanu ku haynaa si ay wax u socdaan waayo halkan waa halkii wadanka ugu sarreysay xagga sharciga ilaalinta sharciga marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan cid kasta oo ay khusayso oo weliba ay ugu horeeyaan ururada siyaasiyiintu waxa weeyaan axsaabta siyaasiga ahi political partiesku inay sharciga u hoggaansamaan inaan sharciga laga bixin maalintii dowlad guddiga doorashooyinka waxay sheegeen in sharcigii laga baxay in sharciga loo hoggaansamo in sharciga la ilaaliyo waayo sharciguunba wax lagu yahay haddii sharciga la iskala baxo waxba ma soconayaan guddiga doorashooyinka markaana waanu garab taaganay waanu la shaqeynaa waddanku xaalad kala guuru ku jiraa in sharciga la ilaaliyo oo maxay hayday lagu dheganaado oo ay doorasho xor oo xalaala hufan waddanka ay ka dhacdo xeerarka doorashooyinka loo hoggaansamo hay-ad waloo dastuuriga shaqadeeda qabsato taasaan ugu baaqaynaa waddankan somaliland waxaan ugu baaqaynaa dadka waxaa kaloo ugu baaqayaa si guud dadka reer somaliland inay nabadda iyo wadajirka iyo walaaltinimada ay ilaashadaan waayo taasaa ka muhiimsan waxaa kaloo anigu sheegayaa qarannimada somaliland way ka guda ballaaran tahay saddex musharax way ka guda ballaaran tahay oo waxa weeyaan qarannimadaa ka muhiimsan doorasho mar dhacaysa iyadaa ka qiimo badan dadkani dagaalo badan bay galeen colaaday galeen dhibaatooyin badan bay galeen nabaddaasay ku caanamaaleen oo ay wax ku barteen oo ay ku barbaareen oo ay ku hormareen oo ay ku baraareen nabadda iyo wadajirka in la ilaaliyo taasina waa waajib qof kastaana inuu sharciga ilaaliyo marka maadaamaanu nahay hay-addii saddexaad ee qaranka saddexda hay-adood weliba hay-addii garsoorka
ee loo soo ashkatoonaya annagu waanu u taagannahay guddiga doorashooyinka waanu la shaqaynaynaa wixii cabashee hayaan wixii xeera nooga baahdaan wixii fasiraad nooga baahdaan waananu wada shaqaynaa si dhow cid walbana waxaan ugu baaqayaa in sharciga la ilaaliyo sharcigu baana wax lagu yahay waayo ummadeena dastuurka iyo shuruucda ka farcantay ayay noo dhaxaysa maxkamadda dastuuriga ahina waxa weeye ishay ku haysaa waa mid mustambeedka u dambeeya ee loo soo noqonayo markaa si fiican baan u wadanaa hawluhuna ilaa imka si fiican bay u socdaan laakiin in sharciga la ilaaliyo ayaa mar walba laga maarmaana waa hagaag dacwado badan oo siyaasiya qaadeen oo cabashooyina matalan dhinaca idinka yimi sideebaa u xalisan inta badan way jirteen dacwadahaas way badan yihiin intii makaanu aan gudoomiye ka ahaa iyo ka horba way yimaadaan hadday axsaabta tahay iyo hadday aad bay noogu qabaan de iyagaaba muujiyey dhinacyadoo dhan way yimaadaan waxaana kutusaya wadanka dhammaan meel kasta oo maanta la joogo garsoorka xoog baa loogu yimi hay-adihii kale ee sida dadban wax u xallin jiray ee dhexdhexaadinta ee cid walba lahaa way noo yimaadeen waxay dhahan war shaqadii baa nagala wareegtay dadkiiba garsoorkii bay yimaadeen waa kalsooniday dadka ku qabaan iyo shaqadii inay soconayso shaqo wanaaggii inuu jiro marka hay-adaha ku hoos jira waxaa jira halkan hay-ada lamaanoo ku hoos jira oo dee maxkamadaha xeeraalinta maxay hayday hay-adaha kale iyaguna soo gala cadaaladda wasaaradda cadaaladda garyaqaanka guud booliiska asluubta dhammaan hay-adahaasina waanu midaysanay waananu wada shaqaynaa hal gacana baanu nahay isku meel baanu ka jeednaa roolka iyo responsibilityga iyo mas-uuliyaddeedu way kala duwan yihin laakiin liidka iyo hogaamintu waa halkan maxkamadda sare ee dastuuriga ah si fiican baanay hawshu noogu socotaa waxa weeyaan halkaasaanu doonana insha allah inaanu kasii wadno de waana runtii waad aragteen oo idinka hagaag ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd bal cadaaladan awal waa sidaan sheegayna waxaa la odhan jiray cadaaladda aad iyo aad baa looga dadweynuhu maxaad ugu sheegi lahayd bal si aad ugu baaqdo in maanta sida aad u sheegtay qofna aanu cadaaladda ka sarreynin qofna qofka ka sarreyn maxaad ugu baaqi lahayd dadweynaha waxaan ugu baaqi lahaa cid walba eeg wadanku wuxuu wadan ku noqdaa sharciga iyo kala dambeynta iyo sharcigoo la ixtiraamo iyo sarreynta sharciga supremacy of law ama waxa weeyaan sharcigu inuu sarreeyo ilan dastuurka ugu weyn waa laaixad yaroo inta leeg dastuurka jamhuuriyadda somaliland wuxuu ku dhisan yahay ixtiraam dastuurka waxa weeyaan iminka somaliland markaynu eegno haddii la ixtiraami waayo waa buuggaa yar ee intaa leegaad aragtay dastuurkii jamhuuriyadda somaliland buuggaasi waa waraaqaha halkee laga ilaaliyaayuu ka dhismaa waa qalbiga waa inay dadku qalbiga geliyaan oo ixtiraamaan oo raacaan marka anigu waxaan ugu baaqi lahaa hay-ad kasta cid kasta qof kasta in sharciga la ilaaliyo kala dambeynta la ilaaliyo maxay hayde la ixtiraamo dowladnimaduna halkaasay fadhidaa waayo haddii sharciga la ilaalin waayo dowladnimo ma jirayso wax dowladnimo jiraysaana ma jirto dastuurkan iyo xeerarka kale ka farcamaynaa waa dadku say u ixtiraamaan taas waan ugu baaqaya ta labaad ee kale waxaan ugu baaqaya garsoorkii isbedelkaasaanu anagu wadnaa inay iyaguna isbedelaan oo ilaahay ka baqaan oo xaqooda raadsadaan oo ay u istaagaan marka laga gar helo ta kale waxaa kaloo nugu baaqayaa shaqadaanu haynaa way ka duwantay shaqada hay-adaha kale hayaan annagu maalin walba gar baana loola yimaadaa gartaa marka ay garsoorayaashu way dhaarsan yihiin ay cadaaladda eegaan ay waxay la tahay eegaan aanay dhinacna eegin dee go-aan bay soo saarayaan go-aanku inaanu kaa farxin baa laga yaaba laakiin dhinacii kalea ka farxaya ku qanac haddaanad ku qancin waxaad leedahay xaq ambiilka qaado cabasha haddaad hayso noo kaalay albaabadeedu kuu furay adiga arkayay magaranaysaa sayda albaabada ugu furay maxkamad kasta guddoomiyaheeduna wuxuu ku amrayay inuu albaabada furo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorkuna waa sidaa saasay u shaqaynayaan iyaguna waanu isku xidhannahay oo mid baanu nahay in markaa ay iyagu soo cawdaan soo gudbiyaan iyaguna dhinacooda joojiyaan oo waddankeeni damacii baa ku batay adduunyadii oo la jeclaataa ku batay waxaa ku batay boobkii waxaa ku batay inaan sharcigii la ilaalin waxaa ku batay maxay haydey qof walba wuxuu isleeyahy wax badso isagoon habsaxa maraynin marka intaana ilaahay loo noqdo oo moralitygi iyo akhlaaqdii inaa la eego oo dhinac walba laga eego ciddii cabasho qabtaa noo timaado ciddii dacwad haysataa xaq bay leeyihin inay isdifaacaan garsoorayaashu meel kastay joogaanna go-aan bay soo saarayaan go-aankaasina cadaaladdu la jirayaa inaanu kaa farxin baa laga yaabaa soo maad fahmin rafcaan qaado hadday kale aanad aragto in lagaa badiyo cadaaladdii lagaa helayna qanac ila waa la qanacaa nolosha qeyb ka mida noloshay ka mid tahay qanaacadu markaa taasaan ugu baaqaynaa annagana waxa waajib nagu ah oo gabagabadan kusoo gabagabeynaya
inaanu waanu dhaarsanay dadka u shaqayno saanu xafiiska u fadhino soo dhaweyno maxay heeday cid kastoo cabasho ay ka jirto oo dadka naga hoos shaqeeya eenu madaxda u nahay eenu mas-uuliyadda anagu u igmadnayna inaanu baadhno oo cabashadooda dhegeysano tallaabo ka qaado toddobaadka iyo barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga intaasi ayaan kusoo gabagabeynaa tan iyo intaan ku kulmi doono aada iyo aad ayaa u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waraysigii guddoomiyaha maxkamadda sare ee distoriga professor aadan xaaji cali axmed oo aanu dadweynaha hortiisa ka samaynay barnaamijkan annagoo dacwadihii dadweynaha oo u furan halkaasi ku dhagaysanay dabeetana halkaa isla meeshaasi su-aal kaga samaynay isagana aada iyo aad aan ugu mahadnaqayno aada iyo aad baan